sheeko xiisa badan oo la xidhiidha xog kooban oo ku aadan maalmihii ay jamhuuriyadda Jabuuti qaadanaysay xorriyadda iyo doorkii dawladda Soomaaliyeed ku lahayd ka qayb qaadashadii xornimo inay helaan walaalaha Jabuuti. waxaa sidoo kale sheekadan ku lamaan arrin xiisa leh oo dhex martay madaxweynihii wakhtigaasi Soomaaliya taladeeda hayay Allah ha u naxariistay Maxamed Siyaad Barre iyo madaxweynihii waddanka Ivory Coast kaasi oo la odhan jiray Hubert Bogni. xogtan waxaa ka sheekeeyey Generaal Jaamac Maxamed Qaalib oo hore u soo noqday taliyihii sirdoonka Soomaaliya iyo xilal kala duwan oo kale kaasi oo wakhtigan bare jaamacadeed ka ah jaamacadaha ku yaala magaalada Muqdisho. waxaana sheekadan ka qoray Maxamed Kaafi oo ah aqoon-yahan Soomaaliyeed. ku soo dhawaada daawadayaal muuqaalkeenan. bishii Sebtembar 2 1945 waxaa si gaar ah u soo dhammaaday dagaalkii labaad ee adduunka. gulufkaas colaadeed oo ka mid ahaa dagaaladii ugu khasaaraha badnaa ee dunida soo mara. waxaa lagu jebiyey dalal xulafo ahaa oo ay ka mid ahaayeen Jarmalka iyo Talyaanigu. waxaa ka guulaystay dagaalkaasi waddamadii loo yaqaanay Alliance-ka oo ay hormoodka ka ahaayeen Mareykanka, Faransiiska iyo Ingiriisku. in uu dhammaado dagaalkaasi waxa uu faraj u ahaa dalalkii gumaysiga ku hoos jiray xilligaas, maadaama shuruudihii uu dagaalka ku galay Mareykanku ay kow ka ahayd in Ingiriiska iyo Faransiisku xorriyaddooda siiyaan dalalkii ay gumaysan jireen. heshiiskaas waxaa kala saxeexday ra'iisul wasaarihii wakhtigaasi Ingiriiska maamulayay oo lagu magacaabi jiray William Churchill iyo madaxweynihii waddanka Mareykanka Franklin Roosevelt, kaasi oo ahaa madaxweynihii ay qayladhaanta u dirsadeen reer Yurub si ay uga soo gaadhaan Jarmalka oo qabsaday badiba dalal badan oo Yurub ah. heshiiskii labada mas'uul waa Churchill iyo Roosevelt waxaa ka dhashay axdigii loo yaqaanay Atlantic oo qodobkiisa ugu muhiimsanaa ahaa in haddii Mareykanku dagaalka gelayo marka la jebiyo Hitler iyo xulafadiisa kadib la xoreeyo dalalka gumaysiga ku hoos jira. Atlantic Charter ama axdigii Atlanta waxa uu gogol xaadh u noqday aasaaskii qaramada midoobay. dhulalkii dadka Soomaaliyeed oo ay gacanta ku kala hayeen Ingiriiska, Faransiiska iyo Talyaaniga oo isagu dagaalkaasi labaad ku jabay waxaa ka curtay dhaqdhaqaaqii gobonimo doonka oo ay ugu dambayn heleen 1960 labadii gobol ee Koonfur iyo Waqooyi, kuwaas oo samaystay Jamhuuriyaddii Somali Republic. dawladihii rayidka ahaa ee bilowgii dalka hoggaanka u qabtay waxa ay ahmiyadda koowaad siiyeen sidii loo xoreyn lahaa gobollada maqan sida Northern Frontier District oo ah NFD oo uu Ingiriisku gacanta ku hayay, Djibouti oo uu Faransiisku gumaysanayay iyo dhulkii Soomaali galbeed oo ay xabashidu haysatay. hase yeeshee maadaama aanay jirin awood markaa saddexdaba lagu wada xoreyn karayay, waxa ay ahmiyadda koowaad siiyeen NFD oo ahayd dhulka Soomaaliyeed ee imika ka tirsan waddanka Kenya. sababtuna waxa ay ahayd Kenya oo qaadashada xorriyaddeedu soo dhawaatay maalmahaasi. si loo gaadho ayay dawladdii goosatay in iyada xoogga la saaro. Soomaali galbeed iyada dan lagama gelin maadaama Itoobiya in qori caaradiis mooyaane aan wax kale lagaga qaadi karaynin ayay Soomaalidu ku tala galeen in iyada dib u dhigtaan ilaa inta kuwan kale ay halka keenayaan. sidaasi ayaana gobollada Soomaali galbeed ajendaheega dib loogu dhigay iyada oo mar walba Soomaalidu doonaysay inay qori caaradii ku xoreyso dhulka Soomaali galbeed. haddaba Djibouti oo sheekadeenani si gaara ugu wajahan tahay ayaan ka hadli doonaa sidii ay xorriyadda ku heshay, dadaaladii ay u galeen dawladihii rayidka ahaa, tii militariga iyo sheekadii dhex martay Allah ha u naxariistay madaxweyne Maxamed Siyaad Barre iyo madaxweynihii hore ee waddanka Ivory Coast Felix Hubert Bogni. dawladihii rayidka ahaa midii kacaanka iyo dadweynuhuba waxa ay ka midaysnaayeen in siyaasad loo maro xoreynta walaalaha Djibouti. sababaha ugu waaweyn ayaa ahaa in aan la xumayn xiriirkii lala lahaa Faransiiska oo ahaa dal weyn oo saamayn dunida ku leh, iyo iyada oo laga baqay haddii dagaal lagu qaado Djibouti in uu laayo dadka reer Djibouti oo deegaankoodu aad u yaryahay. maxay sameeyeen haddaba dawladihii Soomaaliya soo maray? Soomaaliya waxa ay mar walba qadiyadda xoreynta Djibouti geyn jirtay qaramada midoobay oo uu ka furnaa guddi loo garan ogaa ama lagu magacaabi jiray guddida gumaysi ka saarka Decolonization Committee. sidoo kale waxay ka ololeyn jireen shirka guud ee qaramada midoobay ee loo yaqaano UN General Assembly, kaasi oo furma salaasada labaad bisha Sebtembar sanad walba. hase yeeshee dawladihii Soomaaliya waxay caqabad kala kulmi jireen Faransiiska iyo Itoobiya oo ka baqaysay in haddii Djibouti xorowdo kadibna la midowdo Soomaaliya in dalalkii kale ee Afrikaanka ahaa oo la kala safnaa xabashida iyo Faransiisku ay arrintan saameyn ku yeeshaan. iyada oo ay taasi jirto ayuu madaxweynihii Faransiiska Charles de Gaulle booqasho ku yimid Jamhuuriyadda Djibouti sanadkii 1966, balse kacdoon aanay ka warqabin maamulkiisii gumaysigu ayay shacabkii reer Djibouti kala hortageen Faransiiskii iyo Charles de Gaulle. arrintaasi Charles de Gaulle aad ayuu uga cadhooday waxaan u bedelay shaqaalihii ka joogay Djibouti
dhammaantood. Generaal Charles de Gaulle, madaxweynihii Faransiisku, markii uu arkay kacdoonka dadka reer Jabuuti, ayuu go'aansaday in uu afti qaado oo uu ku sheegay inuu ku ogaanayo in dadka reer Jabuuti ay rabaan inuu Faransiisku sii joogo iyo in kale oo ay xorriyad rabaan. Aftidii la qaaday, Faransiisku wuu ku shubtay, taas oo ka yaabisay Soomaalidii oo dhan, waayo canfarta oo qudha ayaa raacsanayd wakhtigaasi aragtida Faransiiska badankoodu. iyagana waxaa ka badan beelaha ciise oo keliya iska daa Soomaalida kale. dhacdadaas kadib Faransiisku waxa uu bedelay magacii Jabuuti ee Soomaaliga ahaa French Somali Coast, waxa uu ka dhigay oo uu u bedelay French Territory of the Afar and Isas. taasi waxa ay gubtay oo aad uga wada dhiidhiyey dalalkii Afrikaanka ahaa oo markii hore xabashida raacsanaa. Soomaaliya waxay uga faa'iidaysatay arrintaasi shir wasiirro Afrikaan ah uga socday Addis Ababa in xubno ka mid ah loo diro Jabuuti si ay qiimayn ugu soo sameeyaan xaaladda ka jirtay jamhuuriyadda Jabuuti. golihii wasiirrada ee Afrikaanka ahaa ee tegay Jabuuti waxa ay soo arkeen magaaladii Jabuuti oo silig lagu ooday dhammaanteed, dadkii reer Jabuuti iyo ciidamadii Faransiiskuna ishor fadhiyaan. iyaga oo xaaladdaas ka niyad jabsan ayay ku soo noqdeen Addis Ababa, waxayna ku tilmaameen arrintii in waxa ay soo arkeen tahay arrin calooliyow ah. waxa ay ku sheegeen arrintaasi concentration camp ama xero aad u dhib badan oo dadka lagu ururiyo. xukuumaddii Soomaaliya ee uu taladeeda hayay madaxweyne Maxamed Siyaad Barre waxa ay qaramada midoobay geysay dacwaddii magaca Jabuuti ee uu Faransiisku bedelay. markana Soomaaliya waxa ay haysataa taageerada dhammaan Afrikaanka marka laga reebo xabashida oo marka dambe raaci doonta. xabashidu markii ay ogaadeen guuxa jira iyo in Afrikaankii oo dhan Soomaaliya la qadiyad yihiin ayay go'aansadeen in ay u codeeyaan. safiirkii u fadhiyey meesha ayaa u yimid Allaha u naxariistee Axmed Maxamed Aadan Qaybe oo ahaa danjirihii Soomaaliya u fadhiyey qaramada midoobay. waxaanu u sheegay in ay markan codkooda siin doonaan, balse shuruud ayuu ku xidhay. waxa uu xabashigu ka codsaday danjire Qaybe in magaca laga dhigo French Somali Coast Jabuuti, waana in magaca Jabuuti laga dambaysiiyo magacii hore. taas dhib uma arag Allaha u naxariistee danjire Axmed Maxamuud Aadan Qaybe, maadaama Jabuuti tahay magaca caasimadda, wuuna ka aqbalay. Qaybe waxa uu rabay inuu isku dhufto Faransiiska iyo xabashida. intii aan codaynta la bilaabin, danjire Qaybe iyo danjirihii xabashidu waxa ay u wada tegeen mas-uulkii codaynta qaadayey, waxayna u wada sheegeen wixii ay ku soo heshiiyeen. markii la soo wada xaadiray oo la doonayay in codaynta la qaado, ayuu yidhi mas-uulkii, waxaan idiin hayaa war wanaagsan. Soomaaliya iyo Itoobiya waxa ay ku heshiiyeen in magacu noqdo French Somali Coast Jabuuti. mar qura ayaa golihii sacab isla oogsaday oo ay wafuudii sacab isku wada dareen, waayo la yaab ayay noqotay Soomaaliya iyo xabashida oo go'aan ku wada socda. go'aankii qaramada midoobay kadib, Faransiiska oo macangag ahaa wuu ku sii adkaystay magacii uu bedelay. waxa uu ahaa waddan quwad leh oo badiba dalalka Afrika isagu gumaysanayay iyo weliba dalal kale oo adduunka ah. hase yeeshee 1974 waxa ay ururkii midowga Afrika ee loo yaqaanay OAU ku shireen magaalada Muqdisho, caasimadda Soomaaliya. waxaa gudoomiye loo doortay Allaha u naxariistay madaxweyne Maxamed Siyaad Barre, maadaama dalka lagu martigeliyo shirka la siiyo madaxtinimada. hoggaanka ay Soomaaliya heshay waxay uga faa'iidaysatay in ay uga madhadhaliso himiladeeda ahayd xoreynta Jabuuti. Maxamed Siyaad Barre waxa uu socdaal ku kala bixiyey badi dalalkii Afrika si ay u taageeraan qadiyadaas, balse waxa ugu saameyn batay madaxweynihii wakhtigaas ee dalka Ivory Coast oo ka mid ah dalalka ku yaala galbeedka qaaradda Afrika. waxa madaxweynahaas la odhan jiray Heboet Bogni. madaxweyne Maxamed Siyaad Barre markii uu kala hadlay qadiyadda Jabuuti, Hobet waxa uu ka helay jawaab cajiib ah. muxuu ku yidhi? waxa uu ku yidhi, nin yahow, waxaa laga baqayaa in haddii Jabuuti la xoreeyo aad idinku qaadataan oo ay Soomaaliya ka mid noqoto, ee ii ballanqaad in ay sideeda ahaanayso. anaa wiilkan yar amar siinaye. wiilka yar ee uu sheegayaa waa madaxweynihii Faransiiska. cajiib, waa arrin la yaab leh. muxuu Hobet Bogni u yidhi anaa amar siinaya madaxweynaha Faransiiska oo uu ku tilmaamay cunug ama ilmo yar? markii dalalka la gumaysanayay la siinayay xorriyaddooda, Ingiriisku waxa uu bilaabay inuu si toos ah u fasaxo kuwii uu isagu haystay, balse Faransiisku siyaasad kale ayuu adeegsaday, isagoo uu ku wargeliyey dalalkii uu haystay in ay Faransiis yihiin oo ay baarlamaanka Faransiiska xubno u soo dirsadaan. tusaale ahaan, waddanka walaalihiinna Jamhuuriyadda Jabuuti waxa ay u dirsatay 2 xubnood, halkii dalalkii waaweynaa sida Ivory Coast iyo Senegal ay min 10 xubnood heleen. Hobet Bogni, madaxweynihii Ivory Coast, waxa uu markaa ka noqday wasiir saameyn weyn ku leh Faransiiska. sidoo kale, Ivory Coast waxa ay ka mid ahayd dalalka uu Faransiisku danaha gaarka ah ee ugu badan ka lahaa qaaradda Afrika. taas ayaa dhaxal siisay madaxweyne Hobet Bogni in uu awooddaas yeesho ama uu isbido
nin culus oo miisaan leh oo wax u sheegi kara madaxweyne Charles de Gaulle. Madaxweyne Maxamed Siyaad Barre waxa uu Hobart Bogni xasuusiyey warbixin uu hadda ka hor sii daayay ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Cabdirasaaq Xaaji Xuseen Allah u naxariistee oo ku saabsanayd in Soomaaliya aanay wax dan ah ka lahayn inay qaataan Djibouti isaguna go'aankaas qaba madaxweyne ahaan. Hobart Bogni markiiba waxa uu wacay madaxweynihii Faransiiska isaga oo u sheegay in uu Maxamed Siyaad Barre la joogo oo fadhiga ku weheliyo. waxa uu madaxweynaha Ivory Coast u sheegay madaxweynihii Faransiiska in Maxamed Siyaad Barre u sheegay in aanay Soomaaliya dan ka lahayn inay qaadato Djibouti balse ay doonayaan in la xoreeyo. madaxweyne naga dhammee dibteeda Djibouti ayuu madaxweynihii Ivory Coast ku yidhi madaxweynihii Faransiiska. fadhigaasi waxa fadhiya madaxweyne Maxamed Siyaad Barre. madaxweynihii Faransiisku ma jeclaysan hadalkaas balse sidoo kale waxba kama diidi karin Hobart Bogni waxaanu shiriyey markiiba golihiisii wasiirada halkaas oo lagu dhameeyay sheekadii xoreynta jamhuuriyadda Djibouti. Faransiisku waxa uu doonayay in ay Djibouti u dhiibaan taladeeda dadkii taabacsanaa iyaga sida Cali Caarif Burhaan oo Djibouti ka ahaa ra'iisul wasaare xilligaas balse waxa ku diiday wasiirkii gumaysiga ee dalka Faransiiska oo sheegay intaasi reer Djibouti iyo Soomaaliyaba aanay aqbali doonin maadaama la og yahay in kuwaasi ay iyaga u shaqeeyaan waxna ka bedeli doonin dhibtii Faransiiska lagu hayay sida caruurtii laga afduubi jiray Faransiiska askartooda iyo safiirkoodii lagu qafaashay magaalada Muqdisho. ugu dambayn waxa ay go'aansadeen in Soomaaliya laga codsado in ay ku xidhaan Xasan Guuleed Abtidoon iyo Ayuub kuwaas oo markii dambe lagu wareejiyay taladii waddanka Djibouti. صاحبيال waxaan intaas ku soo goobaynaa qaybteennan waxaan idinka tegayaa salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.